السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداشا قيمة بدن وسلامتين ملك كستو دنو دافيد كجوكتان كسور دمادا برنامج كينا ورارك عيارها ورارك ودن بي محالغي يري سبورتس كي ويحي عصب فضلا هديتا امرك كوغو هوريسات صوب بوقوتا جنال كينا فضلا سابسكرايب نوصار لايك سار موقال كان وايو داد بدن ويغارايان aragtada نكومنتير نوغوريب xiddig Google ka raadiyay magaciisa kadib markii la weydiiyay kaar aqoonsi suuq u gala garoonka Zanzirio weeraryahanka kooxda Jarmalka ee Borussia Marcus Thuram ayaa sameeyay arrin lagu qoslo kadib markii la weydiiyay inuu la soo baxo kaar aqoonsi oo uu ku gali karo garoonka Zanzirio ka hor kulanka caawa Inter Milan Marcus Thuram oo u dhalay halyeegii daaficii Faransiiska Lilian Thuram ayaa ka mid ah daafacyada ugu fiican ee dunida soo maray ayaa sameeyay arrin lagu qoslo kadib markii kooxda Borussia ayaa Twitter ka soo dhigtay wixii dhexmaray isaga iyo mid ka mid ah ilaaliyaasha garoonka Zanzirio oo ay kooxdan caawa marti ku tahay markii la weydiiyay inuu la soo baxo kaar aqoonsi Marcus Thuram ayaa magaciisa ku qoray Google-ka si uu u tuso waardiyaha qofka uu yahay taasoo u noqotay aqoonsi loo ogolaado inuu garoonka galo Borussia ayaa caawa marti u ah kooxda Talyaaniga ee Inter Milan oo ay ku wajahi doonaan Group B waxaana groupkan ku weynaan kooxaha Real Madrid iyo Shakhtar Donetsk oo iyagana caawa ku ciyaari doona garoonka Alfredo de Stefano rasmi daafaca dhexe oo muddo bil ah Man United ka maqnaan doona iyo kulamo muhiim u seegi doona daafacaas daafaca dhexe Manchester United Eric Peel ayaa muddo bil ah garoomada ugu maqnaan doona dhaawac muruqa ah xiddigan Ivory Coast ayaa seegi doona kulamo muhiim ah kulamadaas oo kala ah Chelsea Arsenal iyo Everton Pele ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii Manchester United afraad kaga badisay Newcastle United ee Premier League ay ciyaartay waxaana laga soo tagay kulankii ay PSG 2-1 kaga badiyeen ee Champions League United ayaa haatan xaqiijisay in daafaca dhexe uu garoomada ka maqnaan doono muddo 4 isbuuc ah Soja ayaa yiri Eric wuxuu qabaa dhaawac muruq ah waxaan u maleynaynaa inuu maqnaan doono 3 ilaa 4 isbuuc malaha kadib ciyaarihii caalamiga ayuu soo laaban doonaa waqtiga uu Pele joogay Old Trafford waxaa hareeray dhaawacyo tan iyo markii uu ka soo wareegay kooxdiisa hore ee Villarreal sanadkii 2016 Barcelona bac qafiif ayuu ka yimid garoonka gool ayuu ka dhaliyay Champions League taxi ayuuna ku aaday gurigiisa daayarka Badri ayaa gool dhaliyay kulankiisa ugu horeeyay Champions League iyadoo Barcelona ay 5-1 ku xasuuqday kooxda Ferencváros kadibna wuxuu Camp Nou kaga tagay taxi sida ay qortay jariirada Markii xiddigan 12 jirka ayaa loo ogoleen inuu qaato laysan maadaama uu da'yar yahay sidaas darteed waxaa qasab ku noqotay inuu taxi ku qaato gurigiisa kadibna ciyaarta markay dhamaatay daayarkan ayaa la soo geliyay daqiiqada 63 isagoo bedelay daayarka kale ee Barcelona u soo baxay Ansu Fati wuxuuna shabaqa soo taabtay dhamaadka ciyaarta iyadoo ay soo martay habeen xasuus leh xiddigan Badri ayaa garoonka Camp Nou yimid isagoo laabtiisa bac ku wato wuxuuna ku baxay taxi intii u dhaxaysay wuxuu gool Champions League u dhaliyay Barcelona 12 jirkan ayaa Blaugrana kaga soo biiray kooxda Las Palmas xagaagii hore isagoo ku yimid lacag gaaraysa 5 milyan oo euro waxaana loo arkaa mid ka mid ah daayarta ugu fiican kubadda cagta Spain xiddigan daayar oo magaciisa oo dhameystiran la yiraahdo Pedro González Lopez ayaa wacdaro u dhigay Las Palmas xil ciyaareedkii la soo dhaafay isagoona u dhaliyay 4 gool wuxuuna caawiyay 6 gool wuxuu bil ka yar yahay weeraryahanka kale ee daayarka ee Barcelona Ansu Fati wuxuuna ka soo dhex baxay kooxda daayar ee Spain Cristiano Ronaldo tumiye xiirtay iyadoo saaxiibtiisa Georgina Rodriguez ay dunida u soo bandhigtay muuqaalkiisa cusub weeraryahanka Juventus Cristiano Ronaldo ayaa muuqaal cusub la soo baxay kadib markii uu iska xiiray timihii inta uu ku jiray karantiilka 35 jirkan oo si joogto u bedelay muuqaalkiisa ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal uu timaha xiirtay isla markaan uu ku jiro qolka jimicsiga ee gurigiisa Ronaldo ayaa seegay kulankii ay Juventus 2-1 kaga badisay Dinamo Kiev xalay kadib markii uu dhacay xiddigan coronavirus inta uu ku maqnaa xulkiisa gudashadiisa waajibka Portugal wuxuuna haatan tartan ugu jira inuu taam u noqdo kulanka ay la ciyaari doonaan Barcelona ay iska hormariyaan xiddigan ay ku xifaaltamay Lionel Messi isbuuc dambe iyadoo ciyaaryahankan u badan tahay inuu seegi doono kulanka Serie A ee Helveron ay la dheli doonto kooxdiisa inkastoo uu garoomada ka maqan yahay Ronaldo ayaa jawi fiican ku jira kadib markii
ay saaxiibtiis Georgina ay ka duubtay muuqaal isagoona jirkiisa sameynaya si uu u ilaaliyo tamaahanshiisa oo muruqiisa u dhisanayay waxayna muuqaal ka duubtay isagoo isku kululaynaya baaskiil isla markaana uu timihii soo xiirtay iyadoo Ronaldo uu muuqaalkiisa cusub la wadaagay 241 milyan taageerayaal uu ku leeyahay Instagram-kiisa